kulanka uu shir gudoominayay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Ali Saciid Fiqi oo labadii sirina ay fadhiyeen ku xigeenka koowaad iyo labaad ayaa waxa ajandihiisu ahaa isbarasho xildhibaanada dhaxmarisay qaybinta noqolka miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda 2019 iyo hadal jeedinta wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ugu horreyn gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Ali Saciid Fiqi ayaa faahfaahiyay ajandaha kulanka maanta December la creio la scuola anche domani in marche so stanno marche direttori an marche che suggerino an scuola dan hekto awai we didn't get the bay in la io kan si kalau kan mai barman ko ahero na dilaya لكن بدون مشكوك أنا يا بس اللي بديجا بديجا سوبر كي ده كان صار وزير الكوجي ويتكلم يكمل عندنا سلاسنا ولا سؤال intaasi kadib wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Axmed Maxamed Xuseen ayaa khudbad dheer halkaasi ka soo jeediyay isagoona ka sheekeeyay miisaaniyadda 2019 miisaaniyadda guuriyay oo Koonfur Galbeed waliba la diyaariyay 2005 inkastoo dowladda markaas afar bilood sanadku ku dhamaanayay miisaaniyadda waliba ay tahay 447 dollar ay sanadkii dhammaantii community miisaaniyadda isbeddelay 6 milyan 930 yanagtay lama kun toddobadii waliba ay miisaaniyadda 5 milyan 730 lama kun iyo tubisiyeedkii waliba ay 7 milyan 164 lacagtaas aan sii sheegay waliba ay inta oo meelay baarlamaanka ansixiyay sanadkii la dhaafay oo lama ku tubisa ka miisaaniyadda waliba ay 8 milyan 431 dollar nasiib wanaag miisaaniyadda sanadkaas oo baarlamaanka ansixiyay 8 milyan ay waliba deeqay 10 milyan oo dollar ya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ya miisaaniyadda kororkad ya deeqtay sanadkan oo haddoo ka jirnaa oo 2020 waliba qiyaasaha oo ku talgalkayna fadaan in 10 milyan 145 dollar oo una kibis kariyaan markasta waxyaabihii oo meel raayo la dhaafin casharada baradaan insha Allah kibis kariyaan sida ay sheegay warbaahinta qaranka Soomaaliya